بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan duubo Kobo toolbox-gaani iyo soo u shaqeeyo marka hore waxaan soo qoraynaa Kobo toolbox kadib waxaan leenahay entry wuxuuna keenayaa markaa page-ka weyn uu leeyahay Kobo toolbox kadib waxaan ku dhufanaynaa meel ay ku qoran tahay sign up kadibna wuxuuna keenayaa sign or create an account wuxuu ku salaysan yahay specific for European iyo account for global oo loo fasaxay anaga waxaan sameynaynaa marka account for global ah kadib wuxuuna keenayaa sida caadiga ah set up la sameyn jiray waxaan ku qasbanahay marka inta inaan buuxino oo datadeeni aan xareyno sectorka aan rabnana aan sheegno kadib aan sheegno organization inaan kamid ahayn halka marka barnaamijka system waa in ka leexiyaa environment kadib waa inaad term reference labada noocba waa diyaar aan u ahay communication ha ahaato ama agree term reference iyo privacy meesha yaala kadib waa inaan sameynaa passwordkii u lahaa kadib waxaan sameyn karnaa inaan create nahno kadib toos wuxuu noo diri doonaa confirmation letter oo gmail-ka ah kadib gmail-ka furi doonaa laakiin hadda hore uu samaysan yahay waxaan ku dhufanayaa markaan login in kadib waxaan gelinayaa labadii gmail labadii userkii iyo passwordkii aan u sameeyay isaga kadib waxaan leeyahay login in rotos iyo keenaya markaa page-kii dashboard-ku lahaa Kobo toolbox dashboard-kana markaa waxaan ku dhufanayaa new excel soo gelin kartaa template oo isagu uu diyaariyaa isticmaali kartaa link website oo questionnaire ku diyaarsan yahay soo xareyn kartaa kan questionnaire oo excel ku diyaarsan oo soo xareyn kartaa marna waxaan dhigi karaa ka soo bilow from scratch waxaan u bixinaynaa kan markaa inaan u bixino mastitis of cattle in Somalia description waxaan leenahay markaa inaan full u qorno waa study to ambare impacts of mastitis on cattle in Somalia waxaan dooranaa markaa sectorkii data aan soo doortay tusaale waxaan soo doortay environment sectorka labaad waa country-ga wadankii aan gelinayaa waxaan ku qasbanaa marka inaan Soomaali raadiyo Soomaali markaan helo inaan click doorto wuu soo xalinaa marka kadib waxaan leenahay create project abuur wuu sameeyaa project-gii markuu ii sameeyo template cusub aan furaa marka intaan ku xareynaa wixii su'aalo marka aan xareynayo waxaan leeyahay inaan qoreen oo kale gender oo kale waxaan leenahay add select one waxaan dooranaynaa male halkan waxaan dooranaynaa female waxaan leenahay add mar labaad waxaan dooranaynaa age waxaan dooranayaa markaa inuu hal xabo ka doorto waxaan soo gelinayaa 20 ilaa 30 waxaan gelinayaa 30 ilaa 40 waxaan gelinayaa 40 ilaa 50 waxaan gelinayaa above 50 qaarkood waxaan soo gelin karaa markaa su'aalo multiple question ah oo su'aalo jawaab badan yeelan kara haddii su'aalaha qaarkood text u yihiin qoraal ay yihiin gadaalaanka isku midooda laakiin waxaan leenahay education aan ka dhigna kasoo qaado kale multiple qofkan wuxuu leeyahay waxaan soo maray secondary waxaan haystaa diploma waxaan haystaa degree waxaan haystaa master 1 waxaan haystaa master 2 waxaan haystaa kasoo qaado kale degree in waxba ka dhigno degree 2 marka laba degree qofku waa qaadan karaa laba masterna qofku waa qaadan karaa
master 2 su'aalaha ka wadna sidoo kale su'aalaha qaar waxay noqon karaan su'aalo direct ah su'aalo waxaa la mid ah raacno waa maxay mastitis su'aalahan oo kale open question waxay u baahan tahay inaan meel ugu furo open question kaas markaa qofku markuu qorayo wuxuu qori doonaa su'aal toos ah waxaa kaloo jiri karaa inaan raacno su'aalo rating leh rate waa taqaanaa sida agree and disagree oo kale rating ay leeyihiin aan sameyna marka waxaan leenahay mastitis affects dairy catalyst in each month su'aalaha ka wada marka waxaan sameyn karnaa rating oo option 1 oo ay tahay strongly disagree option 2 uu yahay disagree saacada aan qornaa option 3 ay tahay neutral option 4 uu yahay agree option 5 uu yahay strongly agree saasa marka su-aasha nooc yaa doontay ah hadda waxaan gelinayaa markaa locationka gps markaan gelinayo waxaan leenahay gps-ka waxaan dooranaynaa point kadib automatic isaga gps soo geliyo meesha ma u baahnaba inaan wax kale soo geliyo data markaan dhameeyo waxaan leeyahay save gray automatic wuxuu igu save garaynaa markaa successfully save inuu soo qoraa waxaan ku noqonaa marka waa dhigi karnaa preview waa soo muuqanaya in sudi karaa oo waxay sahlaysaa markaas oo kale easily inay si fudud aan u dhex geli karno oo banaanka u keeni karno waxaan filaya marka inaa aragtaan waa kana wixii hadda aan qornay oo dhan oo dhamaystiran ratingki waa u sameyn xataa waatan oo qofku u rate gareynayo meesha uu dooran lahaa uu dooranayo gps-kana waa kan u dambeeya locationka marka waa save gareynaynaa kadib waxaan aadaynaa projectii guud meesha noogu jiray haddana kan aan sameyna waa kan waxaan u bixinay mastitis of cattle in Somalia kore ku qoran tahay darabto baad ku dari karnaa laakiin kore ku qoran tahay halka hadda dooran deployed automatic wuxuu hirgelinaa marka inuu gabagabayna waxaan ugu dhinnay marka deployed ana marka linki inta ka soo qaadi karnaa ama waxaan dhigi karnaa noo fur marka noo furo dot inuu furo soo website uu muuqaal lahayd inuu furo markaas hada linki uu soo diray web qofka uu buuxin karaa website uu furaysa sidaas oo qofkana uu buuxin karaa soo website ka isticmaalayo waaka marka see u muuqan doontaana u muuqanaysaa marka saatidayna saana u muuqanaysaa oo qof kasta uu arki karo midda labaad aan rabo marka inaan telephone ku xirno waxaan dooranaynaa markaas oo kale meel ay qoran tahay Android application kadib waxaan qaadanaynaa linkigaas kadib waxaan leenahay copy linkiga la copyeeyo kadib waxaan aadaynaa inaan marka waxaan sameynaa isku xiro telefonkayga iyo waxaan isku xirayaa iyo shaashada si shaashada aan u duubi karo marka waxaan ku qasbanahay marka waxaan gelaynaa waa kan marka waxaan soo saaray telefonkayga saa idin muuqato waxaan ku dhufanayaa Play Store-ka waxaan kusii dhufanayaa sirjiga waxaan ku qorayaa Kobo Collector kore ku qoran tahayba inta dhamaystiranba waxaan dooranayaa taa naftigeeda wuxuu isoo saaraa marka Kobo Collector oo calaamad buluug ah ku wareegsan tahay tigna raacsan buluuga ay saaran tahay waxaan leeyahay install salada aragtaanba wuxuu sameynayaa installation kaas markuu dhameeyo wuxuu ku dejinayaa telefoonka gudaha ogala waa soo qaada linkigii markii inta yaalay iyo username-kii aan isku daraa caada u qori doona waa idin soo doonaa kadib waxaan leeyahay open markaan soo furo kadib waxaan ku noqonayaa saa ila fahantaan website-kii
halkaas linkiga saaran ayaan gelinaa marka linkigaas waxaan gelin doonaa meel ay ku qoran tahay manual entry project url meesha qorantaan ku dhufanaa kadib waxaan gelinayaa http laba dhibac laba calaamad kadibna kc dot cobo tool box dot org kadib waxaan leeyahay slash waxaan gelinaa markaa userkii aan isticmaalaya soo jeeday diyaar soo jeeday marka ma u baahni inaan buuxiyo usernameka iyo passwordka inaan buuxiyo ma baahni waxaan dooranaa markaana add automatic wuxuu ugu daray markaa meeshaas kadib waxaan leeyahay download form ku dhufo kadib wuxuu ii keenaa markaa formkii inta ugu jiray waxaan dareemayaa inuu formka soo qaban okay weli formkii ma soo bandhigin waa inaan ihahda allow exactly hadduu soo saaray marka hadduu soo saaray kadib haddaan leeyahay get okay aan leeyahay kadib start new aan leeyahay wuxuu buuxbuuxinaa markaa formkan aan buuxinayaa waxaan ahaan leeyahay mail oo qofkan wuxuu jiraa 34 qofkan wuxuu haystaa 2 xabo 2 degree marka su-aasha toos ugu jawaaba waa cudur candhada xoolaha ku dhaca oo jeermis uu keeno tusaalean ka raba bis ratingku isoo saara waxaan leeyahay waa sax ugu saameeyaa agree aan leeyahay next gps kan doorna waxaan leeyahay applicationka ifur taleefonka isoo fur applicationka uu furan yahayba wuxuu soo raadinaa marka gps ki kadibna sidaas wuxuu ku dhameynaa markaa waxaan leenahay safe waxaan leenahay weli ma soo saarin hadduu soo saaray kadib waxaa leenahay next finalize aan leenahay waxaan ku dultegnaa resendigi oo ku dhufeynaya waxaa leenahay sii dir automatic wuxuu u baxaa markaa inuu toos u galo taas marka waa tii applicationka telefonka daatada marka waxay kasoo muuqan doontaa isla data inaan ku dhufano hadda table ahaan intuu soo bandhigi doonaa hal ruux hadda ku buuxiyey report baa ku noqdana wuxuu soo saari doonaa markaa halka ruux iyo tablekii halka ruux soo saari doonaa oo su-aal kasta oo qofkaas u buuxiyey kamid ah intaa marka waxay ku haddaa u baahata inaa userka qof u sheergarayso waxaad dooran kartaa sharing waxaad dhigi kartaa add user kadib waxaad leedahay qofku wixii aad doonaysaa sheegaysaa automatic qofkaas u sheergaran kartaa halkaasay nagu dhan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi